kalfadhigan maxamed uu furay 7 xubnood oo quraan lagu dooranaya wax marka lamana xidhiya kalfadhi dambe xidhiyana ma jiro taana wad ku xisaabtamaysaa maayer inay 6 xubnood oo qori ka qaad kareen xilka kalfadhigina uu furay yahay marka tiimkii laasna tiim isku xidhan noqotaan oo shaqeeya oo wax wada doonaya ayaa u baahan tihiin kuna maayer hadii cagaas ka duubtaan ma shaqeynayo labada caqabadood ee ugu badan ee ka hor yimaada golayaasha deegaanka marka la doorto maayerka ka hor yimaada waxa weeyaan xildhibaanada cusub soo doortay oo qof kastaaba uu la yimaado isagoo dhul doonayo dhulka ay si deyn baa lagu leeyahay caynka iyo intan oo qofii shaqaale waa kuwii soo saaray waa kuwii caynka labadaaba nisibola waa xidhnimo muddo 6 bilood dhulka waanu joojinay inta gudaha wax dhul la bixin karin la qorsheyn karin qoraalkina way haystaan wax shaqaale lama qori karo muddo sanad wax shaqaale lama qori karo kuwa joogan baa laga shaqaysiinaya marka caqabadaasina gudoomiye way ka xilban yihiin waayo shaqaalaha jooga meel gobol kasta ama degmo kasta shaqaalaha jooga ka badan baa in wax la qoran ka badan oo magaboormay ilaa 500 shaqaalaha jooga intaas loo baahan laga shaqaysiiyo shaqaalana waxaan kula dardaarmayaa inaad si cadaalad u sameeyaan qof walbana wuxuu la soo baxo ku xisaabtantaan imika waxa shacab laga wada bilaabaya dawladda hoose kuwii hore joogay agaasimayaasha cusub mas'uuliyiinta cusub joogay dhamaantood shacab lagu xisaabtamaya waxay la soo baxaan in walba ay ku shaqaysanaya kulli mushaarka shaqaalana hal ilaaliyo waxa mas'uul xogay arinta wuxuu dhaliil ka yimaada mushaarooyinka shaqaalaya waxa xogayaasha ka mas'uul oo dhaliishooda iyaga leh marka aad iyo aadna u mahadsantiin kulli waqti badan ma haysano dadkuna badan bay fadhiyeen qolkooda inuu cudurada dad bay la markii taagnaa wixii kale xil wareejinta arintooda waanu galay reer boormay soo dhan baashii duuduba lagu qariyay shalay casarkii duurkii baanu nimi maayrada waanu soo keenay wixii xisaab waanu isla eegnay dhiibil baanu isla taabanay wixii khaldanaa waanu ka saarnay wixii saxda waanu soo qaadanay wax nadiif ma markaa saaka la nimi si aan loogu dhex burmil meesha marka taasi way noo dhameystiran tahay oo wax xisaab nadiif aan meesha keenay oo lagu qanacsan dhan waliba ku qanacsan yihiin sawbaanu ilaa shilay fadhinay saan meeshan buuqiyo qalay waxba loo imanin marka taasna waa lagu qanacsan yahay saas ay kuna qalbi saalax ku aanaysan ay soo dhanina salibaan mala wuxuu muusanaya odagii waxba uu muusanay waan ka wareebnay wuxuu qaldanay wuxuu saxda ahaba marka aad iyo aad noo mahadsan qolana waxa haystay 9 sanadood qol 10 sanadood wax badan meel ka faa'iideysanay oo ka baranay haysashadoodii iyo maxaa ay xisaabtankoodii anagu wasaaradda arrimaha gudaha kulli wax badan looga soo baxay marka ay kulli kuwa sidii si ka duwan baynu la xisaabtamaynaa waa ay ku hore si loo faraa looga qaaday macaash waa laga gaar way badan imika dawladda hoose Saleeman marka ma yaraha meel bay taagnayd meel buu soo gaarsiiyay wax fiican bay qabteen oo laba wado qoro kuwaas toonka bay magaalada lahayd laakiin laamiye badan bay leedahay inta muuqato quraba marka cid kastaaba meel bay soo gaarsiinaysaa ilaa 91 maalmo meel baa soo gaarsiinayay imika halka ay marayso qoladan in ka sii laba laabta loo baahan yahay oo ay sii laba laabaan imika laakiin xisaabtanku sidii markii hore waxaan jiray uu ka duwanaanaya xisaab dhaba baa la geliyay imika lacagi kabka ee iska isticmaal jiray sidoo loo isticmaal jiray waan joojinay imika 3 biloodkii hore sanadkan ugu yaalay imika bangiga lama isticmaalin wali waxa in dhammaan mashaariic ku baxayaan lacagaha kabka iyo tijibeeljiga waxa ku baxayaan mashaariic un horumarineed waxa laga rabaa iyaga inay mushaharkaaga iyo shaqaalaha waxa ay isticmaalayaan inay cashuurta kala soo baxaan magaalooyinkoodii iyo magaalada marka 3 bilood war baa laga xisaabtamaya tiimam gaar ah aanu qaybinay oo aanu tababarnay oo gobolada dhan soo maraya imika 3 bilood hore way soo mareen gobolka way mareen xisaab xidhidii way yeelaan 3 ku xigana way soo marayaan marka wax marayaan kolba oo ogaanina